Wararka inaga soo gaaraya degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa waxay sheegayaan in degmadaasi uu isku dhac ku dhex maray ciidamada militariga dalka Kenya iyo dadka shacabka ee ku nool degmadaasi. Isku dhacani ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii ciidamada Kenya ay isku dayeen in halkaasi ay geeyaan qalabka dhismaha kaasi oo loogu talagalay in lagu dhiso derbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya, iyadoona taasi ay keentay in shacabka Ceelwaaq ay ka hortagaan. Korneel Aadan Xirsi Rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa inoo sheegay ciidamada Kenya inay dhibaato badan ku hayaan dadka ku nool degmooyinka gobolka Gado. Sidoo kale korneelka ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu ka dalbaday in arrintaasi ay wax ka qabato. Derbiga dowladda Kenya ay ka dhisayso xadka ay la wadaagto Soomaaliya ayaa muran badan dhaliyay iyadoo dadka ku sugan deegaanada u dhow xadka labada dal ay dhowr jeer halkaasi ka dhigeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhismaha derbigaasi. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee dalka gudihiisa.